haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh. sheekadan waxa ay ku saabsan tahay wiil ina boqor ah oo la yiraahdo Faysal aabihii wuxuu oran jiray mar walba, wiilkaygiyow goormaad guursan doontaa? maxaa yeelay anigii hooyadaaba waan gabownay oo waxaan jeclaan lahayn inaad guursato oo boqortooyada kugu wareejino. Faysal intuu xoogaa aamuso ayuu ku oran jiray aabihii, aabbo aniga kama helo gabdhaha boqortooyadiina degan. maalin maalmaha ka mid ah, Faysal oo saaran dusha sare ee daaradii boqortooyo ayaa arkay gabar socota dibadda shishe meel daaradooda ka fog. markaasuu intuu dabaqa gudihiisa u soo cararay ayuu aabihii u sheegay in gabar cusub magaalada ku soo biirtay uuna doonayo inuu guursado. Faysal muusan ogeyn in gabadha uu doonayo aan laga aqoon magaalada. Faysal gabadhii meel walba ayuu ka raadiyay, laakiin nasiib xumo muusan arag oo wuu waayay. maalmo kadib, Faysal oo saaran dusha sare ee daaradii boqortooyo ayaa nasiib wanaag arkay gabadhii oo u socota gurigeeda. Faysal ayaa si tartiib ah gabadhii u raacay gurigeeda iyadoon ogeyn. Faysal wuxuu kala ogaaday in gabadhaas loo yaqaano Faadumo Ey, waayo waxay xiran jirtay dhar ka samaysan maqaar oo dhaxanta ka celisa. markii uu arkay iyadoo aqalkeedii galayso ayuu xaafadiisa isaga soo laabtay. maalin maalmaha ka mid ah, Faysal ayaa gabadhii booqasho ugu tagay isagoo u waday dhar qurux badan. markuu gurigeedii imaaday ayadoo qubaysanaysa, dharkeedii eyga jirkiisa u ekaa ayuu ka soo qaaday uguna bedelay dharkii uu u waday. Faadumo markay dharkii cusbaa ku soo bedelatay oo banaanka u soo baxday, markaas ayuu Faysal la yaabay quruxdeeda. Faysal gabadhii intuu kaxeeyay ayuu isbaray ayada iyo waalidkiisa. markii muddo badan maalintaa laga joogay, Faysal intuu gabadhii guursaday ayay boqoradiisa noqotay. haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh.